dhacdadii ugu dambeysay waxay xalay ka dhacday magaalada Qoryooley nin uu ku jarjaray gabadhii marka waxaan leeyahay gabdhihii waa loo soo dhigtay marka waxaan rabnaa hay'adaha ku shaqale gabdhaha Soomaaliyeed waa in cadaaladda gabdhaha ay helaan ninka dambiilaha ee falkaas geystay ee haddana baxsaday waa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabnaa maanta inaan halkan ka cambaareyno annagoo guddigii xuquuqul insaanka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkan ka cambaareyno dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Muqdisho gabadhii lagu gubay maxaan ku dhahaayay ninkeeda gubay oo lahayd 6 caruur runtii arintaas iyada waa arin gabdhaha Soomaaliyeed ay meel walba joogan maanta ay ka tiiraanaysan yihiin waxaan rabnaa hay'adaha ku shaqada leh ee amniga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo qabtaan ninka dambiilaha ee gubay gabadha Soomaaliyeed waa in sida ugu dhaqsiyaha badan hay'adaha amniga ay ku soo qabtaan dhacdadaas dhacday darteed haddaan mar hore laga hortagin dhacdooyinka mar walba way soo noqnoqonayeen dhacdadii ugu dambeysay waxay xalay ka dhacday magaalada Qoryooley nin uu ku jarjaray gabadhii marka waxaan leeyahay gabdhihii waa loo soo dhigtay marka waxaan rabnaa hay'adaha ku shaqale gabdhaha Soomaaliyeed waa in cadaaladda gabdhaha ay helaan ninka dambiilaha ee falkaas geystay ee haddana baxsaday waa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo qabtaa ma ogolaanayno mana ogolaan doono maalin walba gabar Soomaaliyeed in la bireeyo ay raggii bireeyaan ee waxbana laga qabanin wallaahi billaahi tallahi inaan ogolaan doonin una dul qaadan doonin gabadha waa la gubay 7 maalmood ay isbitaalka tiilay way xijaabatay ilaa ay hadeertan wali meedkeeda lama duugin mana la duugi doono ilaa gabadhaas ninka waxa sameeyay laga soo qabtay lama duugi doono haddii mar hore wax laga qaban lahaa ma dhici lahayd mid hadda maanta taagan sababtoo ah isla markiiba xalay waa u jeedin in Qoryooley gabar lagu jarjaray marka waxaan leenahay hay'adaha amniga waxaan leenahay waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad waajibkiina aad u gudataan aad soo qabataan dadka dambiilaha ee gabdhaha jarjaray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda duulimaadka casriga ah ee Daalo Airline waxay idin soo kordhisay adeeg cusub kaasoo ka caawinaya bulshada Soomaaliyeed inaad si fudud u jarato tigidhkaaga adiga oo jooga goobtaada ganacsi ama gurigaaga si aad u hesho adeegan fadlan kala soo deg App Store ama Play Store-ka kadibna si sahlan oo dhib yar u jaro tigidhka kana rayso inaad waqti badan ku bixiso inaad hesho tigidh diyaaradeed maantaba isticmaal adeega cusub ee Daalo Airline kana caawi ehelkaaga iyo asxaabtaada si uusan waqti badan uga bixin marka aad rukumato adeega cusub ee Daalo Airline waxaad helaysaa qiimo dhimis sidoo kale si fudud ugu bixin kartaa lacagta adeega Waafi ama EVC Plus adigoonan u baahan inaad tagto xafiiska Daalo Airline haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah fadlan nagala soo xiriir nambarada ku muuqda